dhegaystayaal sida laga yaabo intii naga socotay inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee Soomaalida inay ku tiro yaraato. waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee weerar bulxan la oran jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday, waagii intuu caada dhaafka ku kacay uu maantadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray. inkastoo taxidiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waaye. dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu inaan rag u wada hanqal taagay, kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiin leh ugu soo horreeyey. waatay inoo rahmanayd su-aashii ahayd hubka weerar waa la yaqaano waa gabayo iyo geeraahre ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee tolow nuur idiin leh muxuu isku hadlaynayaa? marka horeba nuur wuxuu mulaaxa isdamacsiiyey isaga oo og halka ay weerar arrintu ka maraysa iyo siduu inanta u jecel yahay. degaanka ayuu wax kaga nool yahay, wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay. sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u bareeray. dadkii degaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisa ee ay isaga uun xilo u noqon doonto. dhabtiina nuur idiinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo sidasa ma hayso. tixrihii weerar wax walaaca ma ay gelin. wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hadlayn jiray tii loogu jeclaa. geel badan oo dhowr kadin ah ayaa xeryaha uga buuxay, isaga ayuunbuuna isku hadlaynayay. maalintii dambe xaajada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa ina idiinle la kulmay. waxay kula kabtameen, nuurow mulaaxa waxay u eg tahay to aan gacan kuugu jirin, marba haddii diidmo laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah qoraac iyo harimaba uga dhigaya. markaasuu ugu jawaabay cagweyntaa gabyi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho, isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa, gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo haleeladayda ayaa iiga filan. dabadeed nuur idiinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatayoo siduu hiduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheed ka doonay. afmaran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doono ayuu golihii ka sheegay. markaasuu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey. waxaa lagu heshiiyey daydka markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo meherin doono. hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay, mulaaxa way isa soo taagtay. waxaa laga soo sheegay inay lahayd aabbahaygu ina idiinla iga yahay. wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto. si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin. geela nuur idiinle oo kale isagu ma lahayn, mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballan qaadaa haddii ay guursato. gabaygiisan aan kol dhow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aad isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheerannimo, labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto. wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sarsabtay. wuxuu ku xodxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono. waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaaldug faraqa uga buuxin doono. wuxuu yidhi, arrin dhacay mulaaxooy, horaa aayad loo qoraye labadii usoodu isku taal kalama oo laanee ubadkeenna aan kala ciyayn. agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac adooyaade adna umarka waad ila qabtaa aanan iryoonayn. ilwaad quruxsan leeyey haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma ilxumaateene afar maro abxadaan kuugu rido awsi iyo khayri ina deeq xidaayadi ku taal boqor alaafaada asli boqora kuu laga absado arag wanaaggeeda usha luqunta aydida sunuug
olol cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayn axmed wiilashiisii oo shaqlaga iyo awowgaaba ayax iyo arbahaye iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo awmahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aas iyo xuseen aadi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalay arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyay abtiyaalada iyo wixii kuwa arxamo sheegta inkuu aragtay aadmiga waan wada utuuray intaase inay idinliyo ninguna u indha taagayso soo ina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idin iyo dhalaabta qaarkeedba ay mulaaxa baankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xiro la-ayn haweenay aad u jeclayd ayuu qabay qudheedana waxba kama qarsoonaynoo sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo uu iyada iimaansado markii ay taas ku guulaysan weydana waxay u cabatay habloweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaan ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilsha u qaadatay ayay laabta ka oyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugaba naasa caddaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka hareelay hanni iyo hawe adduunan la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u toog haysee afadiisii oo guubaabo qabta ayaa si degdega gogol cusub iyo weydaalis isugu kor saartay balkii soomagala ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo agtuumisay xeelyo iyo madiibado afka wada hayo oo ruuxii adkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buu xagga eegay mase waa hilbo jeerjeera kuwa kumbisa iyo oodkacgeed adari lagu udgiyey dhinaca kaluu eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caano ah ay ka soo midaashay waraasi lo-aad iyo karuur geen iyo garoor ari oo aan weli dhanaanan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqa agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu gorodda laalaabshay garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaaye gubasha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay marab marsiina ah boqor midabo qurxoon gambo ilyara oo sugul madow ah dugaagado lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u laqay waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheekala-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooye aan laqbaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiiyo kabdaha laysdul dhigay sida hadlaa baalkii hilibka cusub haydaari wan iyo subag la hoogaanshay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaad igu baayici kabaha ad hawga kaga yeedhin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon habin korkaa joogo waa habeena'aan dhuunigaad hoo i leedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahay haasaa waxaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaan i hubsan soo taal halligi ha isku hadhaq goyne haraggayga unbaan arkiye kuma soo hoyane runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay waraaqdaydii isii kuma ay odhan madaxayga hadduu siiyana
kuma ay faraxdeen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadno